رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، halkan waxaan ka galaynaa casharkii sideedaad ee kitaabkii riyaadu saalixiinka. ilaahay ha nagu anfaco, hana naga dhigo kuwii axaadiidta rasuulka barta kuna dhaqma oo ku camal fala. ilaahay intaas ayaan weydiisanaynaa. waxaan kusoo jirnay baabkii la dhihi jiray baabu sabr ayaan kusoo jirnay. waxaan kasoo sheekaynay qisadii dheereed ee cajiibka aheed ee aadka u macaaneed, wiilkii yaraa ee ninkii saaxirka ahaa uu barayay sixirka, kabacdina ninka oo ahludiinka ah oo wanaagsan uunta helay uu diintii baray, kabacdina wiilkii uu noqday qof addoon ilaahay oo ahlu karaama ah oo aada u wanaagsan, iyo dadkii sidoo kale kusoo islaamay maaragtay uu daaweeyey xaaladiisii meesha ay ku dambeyday. qisadaas ayaan kasoo sheekaynay. marka waxay qisadaasi na tusinaysaa qofku hadduu ilaahay waddadiisa ku tooso in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu xifdinayo, in ilaahay uu ilaalinayo, in ilaahay uu dhowrayo, ayaa arrintaasi ay caddaynaysaa. marka insha allahu tacaala ilaahay sidaas ayaan weydiisanaynaa. wa can anas waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi mara annabiyu sala allahu calayhi wasalama, ilaahay rasuulkiisii wuxuu soo maray bimra'atin haweeney ayuu soo maray, taasoo tabkii ooynaysa cinda qabri agtiisa ka ooynaysa. fa qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ittaqi llaaha, ilaahay ka cabso, wasbirii sabr, ilaahay ka cabso sabr. fa qaalad waxay tidhi ilayka iga fogow cannii xaggayga, aniga iga fogow, iga tag. fa innaka adiga lam tusab laguma asiibinoo kuguma dhicin bimusiibatii bimithli musiibatii, aniga musiibadaydoo kaleoo dhibaatada igaartoo kale kuguma dhicina iga fogow. nabiga ayay sidaas ku tiri calayhi salaatu wasalaam, mana aysan garanayn gabadhu nabigo, walxaal ayay sidaas tiri lam tacrifhu, nabiga aysan garanayn oo aysan ogeyn inuu nebi maxamed yahay calayhi salaatu wasalaam. fa qiila lahaa, ayadii gabadhi waxaa lagu yidhi innahu qofkan aa sidaas ku tiri annabiyu waa nabigii sala allahu calayhi wasalam. nebigiia hadalkaas xun ugu jawaabto. fa atad waa ay timid baaba nabiyi sala allahu calayhi wasalama, nabiga albaabkiisii ayay timid. falam tajid ma aysa helin cindahu nabiga agtiisa bawaabiina kuwa waardiyaal ah oo albaabka jooga ma aysa helinoo waxaa isleed nabigu maadaama uu madax yahay albaabka xataa lagu ogolaan maayo inaad u gasha, waa adkaa doontaa waardiya jooga. fa qaalad waxay tiri markay nabiga u tagtay kabacdi calayhi salaatu wasalaam, lam acrifka, kuma aanan garanayn rasuulkii allow. faqaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, innama asabru, sabarku cinda sadmati, dhacdadii agteeda ayuu ahaadaa al-ulaa ee horeysay. muttafaqun caleyh. markii gabadhaan nabiga u timid oo tiri rasuulkii allow kuma aanan garanayn, wuxuu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam, macnaha kumaanan garanayn oo haddii aan ku garanaa adiga inay tahay saas kuma idhaahdeen, waa qaada lahaa cilmiga ay ii sheegtay sabarka, saasaa macnuhu ka dhigan yahi. nabigu marka wuxuu leey calayhi salaatu wasalaam, maya, sabarku waa jugta hore, marka hore musiibada qofku ay ku dhacdo, markaasaaba sabarka looga baahan yahay. sabarka oo ajarka laga helayo kaas weeye, sabarka ajarka faraha badan laga helayo kaas weeye. qofka waxa weeye musiibo way ku dhacaysaa, musiibadii inuu ku sabraa waa adag tahay, inuu hadda inta ku sabri waayo ajarkii dhaafaa kasii adag, sidii imaamu shaafici hadalkiisa u ahaa. marka waxaa la rabaa qofka adigu aad garanaysid iyo qofkaada garanayn intaba, haddii khayrka laguu sheego inaad ka qaadatid ayaa loo baahan yahay. muttafaqun caleyh. xadiidka bukhaari iyo muslim ayaa isku raacay. wa fii riwaayatin waxaa ku sugnaa riwaayad oo limuslimin u sugnaaday, tabkii waxay ooyeysay calaa sabiyin liajli mowtihi, sabiyin caruur dhimashadiis dartiis oo lahaa iyada u sugnaaday. gabadhan qabriga ay ka dul ooyeysay
cunugeed yaraa ayaa lagu aasay oo ka dhintay marka cunugii naxdinta ay ka naxday la ooyeysay. وعن أبي هريرة waxaa laga wariyay رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي rasuulkiisii qaala wuxuu yidhi yaquulu allahu ilaahay wuxuu leeyay tacaala sha'nuhu maa licabdii addoonkayga uma sugnaanin addoonkii almu'mini muuminka ahaa cindii aniga agtayda uma yaallo jazaa-un abaalmarin idaa qabadtu haddii aan qaato safiyahu kiisa uu jecel yahay oo min ahlidunya adduunyada ehelkeeda ka mid a huma xtasabahu uu ajar gurubsado ila aljannatu janno maahana wax kale uma yaalaan agtayda rawaahu lbukhaariyu. wuxuu leeyahy ilaahay subxaana wa tacala waa xadiidu lqudsi nabigu calayhi salaatu wasalaam uu warinayo. ilaahay wuxuu leeyahy addoonkayga haddii waxa uu jecel yahay aan ka qaato, caruurtiisiyaa laga qaatay, dadkii kaloo uu jeclaayo wixii xulka u ahaayo doorka ahaa ayaa laga qaatay, kabacdi waa uu ku sabray, aniga agtayda waxa u yaallaahi waa janno uu leeyahy ilaahay subxaana wa tacaala. waa xadiis bukhaariya. ilaahay subxaana wa tacaala marka allah naga dhigo musiibo waa ay dhacaysaahe kuwii ku sabra oo maaragtay ajarkaas uusan seegin ilaahay ha naga dhigo. wa can caaishata waxaa laga wariyay radia allahu canha annahaa caaisha sa'alat rasuulallahi sala allahu calayhi wasalam ilaahay rasuulkaasi ayay weydiisay can idaacuuni daacuunka ayay ka weydiisay. daacuunku waxa weeye ma ahan cudurkan shubanka ah, waxaa leeraa waa boogo iyo xanuun maaragtay kilkilaha iyo meelahaas ka soo aad u xanuun badan oo loo dhinto wey. fa akhbara nabigu wuu sheegay calayhi salaatu wasalaam haa caaisha wuxuu u sheegay annahu daacuunku kaana inuu ahaa cadaaban cadaab yabcathu llaahu ilaahay uu soo dirayo hu cadaabkaas tacaalaa sha'nuhu iyo ilaahay calaa man ruux korkiisu ku diraya yashaa uu doono. waa cadaab ilaahay qofkii uu doono uu ku salladayo. fajacala ilaahay wuxuu ka dhigay hu daacuunkii fajacala allahu tacaala ilaahay wuxuu ka dhigay hu daacuunkii raxmatan naxariis ayuu ka dhigay lilmu'miniina mu'miniinta ayuu naxariis uga dhigay. oo qaabka uu naxariista u yahay waa kan falaysa min cabdin addoon ma jiro cabdigaasoo yaqacu dhacaya fi daacuuni daacuunka dhexdiisa dhacayoo jooga, macnaha meesha daacuunku ka dhacay jooga. markii waqtigii daacuunka dhacay daacuunku uu dhacay uu joogana oo fa yamkuthu nagaado iska jooga fii beladihi magaaladiisa saabiran xaalu yahay kii ajar raadsanaya kii sabraya muxtasiban ajar doonayo ilaahay ajar kaga doonaya sabarkaas uu meeshaas ku sabray. yaclamu haddana og annahu shaksigaas ama annahu shaniyo laa yusiibuhu ruuxaas inuusan gaarayn ilaa maa kataba allahu ilaahay wuxuu u qoray maogya lahu ma shaksigan, oo wuxuu og yahay meeshii daacuunku ka dhacay markii uu joogay kama cararin ee wuxuu aaminsan yahay wixii ilaahay uu qadaray kaliya inay ku dhacayaan. haddii ruuxaasi uu sidaas yeelo meesha daacuunka uusan ka cararin ilaa kaana lahu shaksigaas waxa u ahaada mithlu ajri shahiidi qof shahiida oo dagaal jihaad fii sabiilillahi ku shahiiday ajarkiisoo kale uu leeyahay. rawaahu lbukhaariyu. marka waa u naxariisa awal ummadii uu ilaahay doonu inta kusoo diru ilaahay ku halaagayay, laakiin muuminiinta naxariisuba u yahoo ajarkaasayba gaarayaanba. qofkii maaragta muuminka aha hadduu ku sabro ajarkaasuu gaarayaa, ha ku dhaco daacuunka ama yuusan ku dhicin. hadduu ajarkaas iyo sabarkaas iyo ajar raadsigaas uu ku joogo niyadaas wanaagsan, waana inuu ogaado qofku markasta waxa ku dhacaya waa wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u qadaray ee waxaan ilaahay u qadarin kuma dhacayaan. wacan anas waxaa laga wariyay radia allaahu canhu anas binu maalik waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi samictu rasuulallahi sala allahu calayhi wasalam ilaahay rasuulkiisii ayaan maqlay yaquulu xaalu leeyahay ina allaha ilaahay caza wajalla qaala wuxuu yidhi waa xadiisulqudsi ilaahay xadiisulqudsigaa nabigu ka warinaya. ilaahay wuxuu yidhi ida btalaytu haddii aan imtixaano cabdii aniga addoonkayga haddii aan imtixaano oo jirrabo bixabiibatayhi labadiisii uu jeclaa haddaan ku imtixaano labadii indhoodaan ka qaatuu leh ilaahay addoonkayga haddaan labadii indhood ka qaato oo fa sabara uu sabro markii aan indhihii ka qaatay haddii uu ku sabro cawadtuhu waxaan ugu badalayaa ha ilaahay leeyahay minhumaa labadii indhood waxaan ugu badalayaa aljannata janno. allahu akbar. u fiirso macnaha ruuxaani waad indha beeshay isma uusan dhihin waa ku sabray janna ugu badalaya uu leeyahay. qofku hadduu indhaha beelo ama uu lugaha beelo ama uu gacnaha beelo xubin jirkiisa ka mid a haddii uu waayo ee uu ku sabro qadarta ilaahay janno ugu badalaya. yuriidu wuxuu u jeedaa ilaahay markuu leeyahay xabiibatayhi
labadii uu jeclaa caynayhi labadiisa indhood waa labadii uu wax ku arkayay wax maaragtay uu ku qaraabanayay ku soconayay adduunkan oo dhan ku kala arkayay haddii ilaahay ka qaato ee uu ku sabro ilahay wuxuu leeyay janna ugu bedelaya haddii la sabri waayana waa qatar rawahu lbukhaari xadiidka imaam bukhaariya wariyay wacan caddaan waxaa laga wariyay ibnu abi rabaax qaala wuxuu yidhi qaala lii wuxuu ii yidhi ibnu cabaas caddaan binu abi rabaax oo taabiciyaha wuxuu leeyahay ibnu cabaas cabdullahi ibnu cabaas radiallahu canhuma oo asxaabigii rasuulka ah ayaa wuxuu igu yidhi alaa uriika miyaanan ku tusinayn imra'atan haweeney min ahliljannati jannada dadkeedii ka mid a haweeney oo dadka jannadaba ka tirsan oo la hubo oo rasuulku caddeey ma ku tusaahuu yidhi faqultu waxaan iru yidhi balaa haa war itusi taas qof oo ahlu janno ka mid a itusi qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bnu cabaas haadihi tan almar'atu haweeneydaa assawdaa'u madow atat innabiya sala allahu calayhi wasalam nabigay u timid faqaalat waxay tidhi innii anigu usracu waa la ilagdaa macnaha waa suuxaa anigu waa suuxaa rasuulkii allow waan dhacayaa wa innii anigu atakashafu waan faydmaahoo markii aan dhacana cawradaydii ayaa bannaanaanaysa fadcullaaha ilaahay bari tacaalaa sha'nuhu lii aniga ii bari inuu ilaahay iga qaado cudurkan oo markii aan suuxa cawradaydu ay bannaanaanayso hadda dharkii markaas la haystayna maaragtay sida dharkan hadda surweelkii hoosta iyo dharka xoogga leho ay dumarka hoos ka xiranayaanna ma ahayn oo waxa weeye mara kor ay ka xiranayso ama diricii ama gogaradii oo wax kale ka hooseyn ayay ahayd marka gabadhaas muuminada xataa cudurka kaliya kamaysa cabane waxay tiri cawradayda ayaa bannaanaanaysa rasuulka allow ee ii bari in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu iga qaado cudurkaas qaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam in shi'ti haddii aad doontid sabarti waad sabraysaa cudurkaas suuxdinta waad ku sabraysaa walakil janna waxaadna leedahay janno cudurkaas qalalka ah waad ku sabraysaa jannaadna bedelkeed ilahay ku siinaya wain shi'ti haddii aad doontidna dacawtullaha tacaala ilaahay ayaan kuu baryayaa an yucaafiyaka in ilaahay uu ku caafiyo an yucaafiyiki in ilaahay uu ku caafiyo an yucaafiyaki in ilaahay ku caafiya ilaahay kuu baryaya marka laba adaa khiyaar u leh inaa ilaahay kuu baryo caafimaad oo aad caafimaadid iyo in cudurkaagaas qalalka ah aad haysatid maaragtay janno aad heshid faqaalad waxay tiri asbiru waan sabrayaa rasuulkii allow cudurkaygaas qalalka ah igu dhaco waa ku sabrayaa faqaalad waxay tiri ilaa jannadii wax loo dhiga lama arkee faqaalad waxay tiri mar kale innii anigu atakashafu waan faydmaho cawradayda bannaanaanaysa markii qalalkaas igu dhaco fadcullaaha ilaahay bari allaa atakashafa inaanan faydminoo cawradaydu aysan bannaanaan fadacaa lahaa nabigu waa uu u duceey calayhi salaatu wasalaam muttafaqun calayh marka sayidana cabdullahi bnu cabaas wuxuu leeyahay gabadhaas cudurkii ayay ku sabartay nebi maxamedana u markhaati kacay janno marka haweeneydaas wuxuu leeyahay waa ahlu janna haweeney ahlu janno ah wey marka laakiin dhankii kale waxay codsatay inaan cawradeedu bannaanaan ee ilaahay nebigu u baryay calayhi salaatu wasalaam ilaahayna rasuulku ilaahay waa u baryay hadda ducada rasuulkuna waa maqbuul muttafaqun caleyhi xadiidka bukhaariya muslima wariyey wacan abi cabdiraxmaan waxaa laga wariyay cabdullaahi bni mascuud radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi cabdullaahi kaannii anigu anduru waaba anigoo ujeeda inaan u jeedo ayaa moodaa ilaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi inaan fiirinaya ayaa moodaa yaxkii asagoo ka sheekaynaya nebigaasoo min al ambiyaai ambiyada ka mid a waxaa moodaa huu yidhi inaan hadda arkayo waqti rasuulku uu ka xikaayoonayo calayhi salaatu wasalaam nebi oo ilaahay ambiyadiisii ka mid a isagoo nebigu ka sheekaynayo xaaladii uu uga sheekaynayay inaan maaragta hadda u jeedo ayaa moodaa huu yidhi uu leeyahay cabdullaahi bnu mascuud waayahay salawaatullaahi ilaahay naxariisyaalkiisa iyo wasalaamuhu ilaahay nabadgelyadiisuba calayhim ambiyada korkooda ha ahaadeene nebigaasoo daraba uu garaacay hu nebiga qowmuhu qoomkiisii ay garaaceen waayahay oo fa admowhu ay ka dhiigeeyeen marka nebigan waxaa la yidhaahdaa nebi nuuxuu ahaa waa layidhi imaamu mujaahid sidaas ayuu leeyahay
laakiin culamo kale waxay leeyihiin ma ahayn maaragtay nebi maxamed uu ahaa calayhi salaatu wasalaam. maxaa yeelay qisadaani waxa weeye markii nebiga calayhi salaatu wasalaam la gaarsiiyey dhibka kabacdi ayay dhacday. marka wuxuu leeyahay nebiga qoomkiisi inta garaaceen ay ka dhiigeeyeen, walxaal huwa nebigaasina yamsaxu uu tirayo addama dhiiggii can wajhihi wejigiisa uu ka tirayo, yaquulu asagoo leh allaahumma ilaahow ikfir dhaaf liqowmii qoomkayga ilaahow u dhaaf, fa innahum ayagu laa yaclamuuna waxba ma oge. u fiirsan raxmadda ambiyada ilaahay, ama nebi maxamed ha ahaado ama nebi kale ha ahaadee, waa oon ambiyadii ilaahay weeye raxmaddaas ilaahay uu la soo diray. marka qisadan waxaa la yidhaahdaa markii oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uxud nabiga iliga laga jabiyey oo madaxiisii la dhaawacay oo jeegada ninkuu seefta uga dhiftay oo nabigu godka ku dhacay nabiga dhaawacyaalka fara badan ay soo gaareen kabacdii aheeda la yidhaahdaa. sidoo kale hadda waa ogtihiin markii oo daa'if nabiga calayhi salaatu wasalaam wixii la gaarsiiyey oo uu ku sabray oo malakul jibaal xataa in loo soo diray oo uu yidhi ilaahay wuu isoo diray wuxuuna amray inaan labadaas buurood ku halaago nimankaas si maaragtay ayba waxbaba uga harin. nabiguna uu yidhi calayhi salaatu wasalaam maya, waxaa dhici karta in dhabaradooda laga soo saaro dad oo ilaahay diintiisa macnaha ilaahay dad rumeeya. hadda waana dhacdo dadkii waqtigaas dad ilaahay rumeeya ayaa ilaahay doodadkooda ka soo saaray. marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam sabarkiisii ayay tusinaysaa. markaasuu nabigu leeyahay ilaahu qoomkayga u dhaafta macnaheedu waxa weeye ilaahu soo hanuuni. hanuuna loogu ducaynaya, ilaahu soo hanuuni. waxa weeye ayagu waxba ma oge raxmaddii rasuulka calayhi salaatu wasalaam, ilaa ilaahay wuxuu la soo diray raxmad, wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin. muttafaqun calayhi, xadiidka bukhaari iyo muslim wariyey. وعن أبي سعيد وحا لغوري إيو أبي هريرة رضي الله عنهما لبدا أصحابي وحا لغوري عن النبي وحي كوريا صلى الله عليه وسلم قال النبي إنه يري ما يصيب المسلم قفك مسلم كمجاره من نصب لب مجاره ولا وصب حنون نصبك وحوي تعبك دالك إيو وحيالهاس قال لي هذا نصب ولا وصب حنون مجاره oo qofka muuminka haddii dhib gaaro macnaha waxaa laga sheekaynaya waxyaalaha qofka muuminka ah soo gaari kara. marka wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam qofka muuminka wax kastoo asiba oo wasab nasabkii oo daalkii ah iyo wasab oo xanuunkii daa'imka. wasabku waa alwajacu daa'im, xanuunkii maaragta joogtada ahaa. nasabkuna waa tacabki dhibkii oo dhan waa kaasaa sii caamsan. walaa hamun murugina ma gaarto, walaa xasanun tiiraanyana ma gaarto. waxaa la yidhaahdaa hamiga waa murugta oo waxa weeye mustaqbalka ku dhici doonta. xasankana waxa weeye waa murugtii lasoo dhaafay. taas waa lagu kala fasiraa. qofka muuminka marka mid kastoo gaartaba, tiiraanyo ama mid soo tagtay iyo mid soo socota iyo dhib iyo walaa adan dhib walaa qaman murug, waxaasoo dhan wax allaala wixii qofka gaara oo dhibaato ah. marka qamigu murugtii weeye, laakiin waa kasii xeel dheer yaha leeraa xusniga, waa kasii xeel dheer yahay in xataa shawkatu maca qodaxdii oo yushaakuha qofkaas lagu mudayo, wax allaala wixii gaara ilaa kafara allaahu ilaahay wuu ugu dhaafaa oo waa uga asturaho uga tirtiraa bihaa masaa'ibtaas min khataayaahu gafafyaalkiisa looga tirtiraa. oo qofka waxa weeye dhibaatooyinkaas gaaraya waa lagu ilaahay dunuubtiisii ayuu uga tirtiraya. hadda waa haddii qofku ku sabro, haddii uu ku sabro weeye dunuubtiisii looga kala yaraynaya. marka dadkuna waa kuwa markii oo qofka ay u yimaadaan xanuunsan waa kuwa yidhaahda dambi dhaaf ilaahay kaaga dhigo, dambi dhaaf ilaahay kaaga dhiga yidhaahda. xadiidkaas waxaa isku raacay bukhaari iyo muslim ayaa isku raacay. walwasabu almaradu waa xanuun. wasabku waxa weye waa xanuun.
وعن ابن مسعود وحا لغا وريي رضي الله عنه قال وحو يري دخلت وحا أسوى قال على النبي صلى الله عليه وسلم والحال هو النبي يوعك لقندين oo qandho iyo xanuun uu nabiga u hayay calayhi salaatu wasalaam jiro ay hayso faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah ilaahay rasuulkiisiiyo innaka adiga tuucaku waa lagu qandhinayaa hoo xanuun ayaa ku haya wackan qandho ayaa ku haysa iyo xanuun xumad wackigaasoo shadiidan daran xumad daran ayaa ku haysa iyo qandho xanuun badan qaala nabigu wuxuu yidhi ajal haa qultu innii aniga uucaku waa la iqandhinayaahoo xumad ayaa laygu ridayaa kamaa yuucaku sida qandho iyo xanuun loo saaro xumad rajulaani laba qof oo minkum adinka in ka mid a qandhada laba qof oo adinka in ka mida qabata aniga la isku kaydaru yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam allahu akbar qultu waxaan iru yidhi daalika kaas xaasilun wuxuu kusoo xasilayaa ana laka bisababi ana laka inuu kuu ahaaday ajrayni laba ajar macnaha taas waxay ka dhigan tahay laba ajaraad leeda waa naga ajra badanta qaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ajal haa waan ka ajar badanahay oo mar kastoo dhibku bataba ajarkaa bata maxaa yeelay mar kastoo dhibku bato qofku ku sabro waxa weeye waa ajarkiisa sii badanaya hadda nebi maxamedna qof ka sabar badan khalqiga ilaahay kumaba jiraba daalika kaasi kadaalika sidaas wuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam kaasi waa sidaasoo laba ajaraan leehay maa min muslimin muslim ma jiruu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam muslimkaasoo yusiibuhu uu gaarayo adan dhib shawkatun qodax ay mudayso qodax ay gaarayso iyo famaa fowqaha waxa ka sarreeya dhibba haba yaraado qodax kasoo bilow ilaa haddii uu jiraba kafara allaahu ilaahay waa ugu kafaara gudaa waa uga tiraa bihaa bisababiha musiibadii sababkeeda sayi-aatihi xumaanyaalkiisiya looga tiraa waxudad waa laga hoobiyaa waaye canu xaggiisa dunuubuhu dunuubtiisi ayaa laga hoobiyaa oo laga daadiyaa kamaa tuxadu shajaratu sidii geeddii loo daadiyo waraqahaa caleenteeda sida looga daadiyo nabigu calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu noo caddaynayaa haddii qofka uu ku sabro ilaa baabu sabaraan ku jirnaahe dhibaatooyinka soo gaara in maaragtay qofkaas dunuubtiiba looga maaragtay tirtirayo laakiin shardi waxaasoo dhan waxa u ah in maaragtay sabar la helo marka sayi-aadku waa dunuubtii yaryaraa oo ilaahay xuquuqdiisa ku tacalluqay laakiin dunuubtii waaweyneed oo ilaahay laga galay iyo dunuubtii bini aadam laga galoo dhan waxay u baahan yihiin dembi dhaaf tii ilaahay laga galo waaweyneed in istikfaar qofka uu la yimaado iyo toobadkeen oo toobad shuruuddeedii laga helo qofka uu la yimaado dhanka kalena tii bini aadam laga galay qofkii xuquuqdiisa uu celiyo ay u baahan tahay oo ama maaragta uu hadday wax kale xan iyo aheyd uu ka dalbo inuu cafiyo haddii oo ayse suuragalayna ama dhib ka badan uu ka imaanaya cafiskiina qofkaas wuu u dembi dhaaf dalbaya walwacku qandhadu maqthul xumaa waxa weeye qandhadii kulaylkeedii iyo daciifinteedii jirka ay daciifinaysay wey xadiidkaas waa bukhaari iyo muslim wariye muttafaqun caleyh waqiila waxaa la yidhi alxumaa waxaa la yidhi macnaha maqthul xumaa waa qandhada kulaylkeeda waxaa kaloo la yidhi alxumaa waaba qandhada lafteeda wacki leera wacan abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ilaahay rasuulkiisu wuxuu yidhi man yuriid illaahu ilaahay qofkii uu la doono bihi ruuxaas khayran wanaag yusib wuu asiibayaa ilaahay minhu shaqsiga xaggiisuu ka asiibayaa hoo ama yusab waa la asiibayaa oo dhibaasha la gaarsiinaya minhu shaqsiga xaggiisa laga asiibayaa macnaha waxa weeye qofkii ilaahay uu wanaag la doono adduunyada ilaahay wax gaarsiiya markaasaa dunuubtiisii looga tirtiraa xasanaadna loogu kordhiyaa laakiin qofkii aan ilaahay wanaag la doonin dunuubtiisii isu korkorta iyadoon la taaban yaa oo waxaysi u kaydsan yihiin ayuu aakhiro tegaya ilaahay annagoon maaragtay dhibaatooyin badan marin ilaahay dunuubteenna ha dhaafo annago masaakiinanaho haddamaba adkaysan karnaba rawaahu lbukhaariy wadabadii culammadii waxay shaqleen yusib wuu asiibayaa ilaahay dhibaatuu gaarsiinaya bifatxi saadi oo yusab leeraa iyo wa kasrihaa oo yusib leeraa
الحمد لله رب العالمين. وعن أنس waxaa laga wariyay رضي الله عنه qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam ilahi rasuulkiis wuxuu yidhi laa yatamanayanna yuusan jeclaan oo tamanin axadukum qofkiin almowta dhimasho yuusan jeclaan lidurin dhibaato awgeed yuusan dhimasho u jeclaan oo u tamanin dhibkaasoo asaabahu gaaray qofka oo qof haddii dhibaato soo gaarto allah adduunyadan waaba ku dhibtooda ilaahu iga wad yuusan dheh ilaahu iga wad oo idhaafi adduunyada yuusan dheh fa in kaana haddii uu yahay tamanigii laabudda midaan laga maarmayno qofka haddii qalbigiisa uu soo galaysa dhimasho faacilan fa in kaana tamanigii hadduu yahay laabudda mid aan laga maarmin faacilan mid uu samaynayo qofkaasi falyaqul ha yidhaahdo allaahumma ilaahow axyinii inooleeh maa kaanat ilxayaatu inta noloshu ay tahay khayran wanaag lii aniga ay ii tahay inta noloshu ii wanaagsan tahay ilaahow nolosha ii dah haa watawafani i oofso idaa kaanat ilwafaatu dhimashadu markii ay noqoto khayran mid wanaagsan lii aniga ii wanaagsan ilaahay markaasna i oofso haa markaasna ilaahu adduunyadan iga wad ha yirahdo qofku muttafaqun caleyh laakiin si kale qofku yuusan u tamanin dhimasho oo qofku yuusan dhihin ilaahu adduunyada idhaafiyo waa ku dhibtooda iyo xoogaa wax yaroo soo gaaray lidurin asaabahu aleerfiiri oo dhib weliba adduunyo oo soo gaaray yuusan qofku dhimasho u tawali wacan abi cabdillaahi waxaa laga wariyay khabaab binu larati radia allaahu canhu asxaabigaas qaala wuxuu yidhi shakownaa waan sheeganay ilaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam ilahi rasuulkiisa usoo cabannay walxaal huwa nabiguna mutawasidun uu barkimaysanayo burdatan go oo lahu nabiga u sugnaaday fii dilli lkacbati kacbada hooskeeda uu barkanayo go nabigu asagoo barkan kacbada hooskeeda aan nabiga cabasho usoo gudbina faqulnaa waxaan nidhi waatan cabashadii alaa tastansiru miyaada gargaar dalbayn lanaa annaga miyaada noo gargaar dalbayn rasuulkii allow in ilaahay noo gargaarma ilahay noo weydiidid alaa tadcuu lanaa miyaada noo ducaynayn rasuulka ilaahay oo dhib iyo xaalad adagan ku jirnaahe ilaahay maa noo bari sidoo noo ducayst fa qaala nabigu wuxuu yidhi qad kaana nabigu wuxuu rabaa marka inuu sabarka iyo baro dadkii hore dhibaatooyinkan ku sugnaayeen ayaga waxaa looga baahanya inuu nabigu fahansiiyo nabigu wuxuu yidhi qad kaana waxaa ahaa waxay ahaayeen man qablakum dadkii idinka horreeyey yu'khadu rajulu ninka in la qabanayo oo fa yuxfaru la qodayo lahu ninkaas qofaa loo jeeda rag iyo dumarba hadda rajulka fil ardi dhulka ayaa loo qodayay fa yujcalu waa la yeelayay fiiha ardadii dhexdeeda la gelinayay dhulka inta loo qodaa la gelinayo qaarka dambe loo gelinayay uma yu'taa waa lala imaanaya bilminshaari miishaar ayaa lala imaanayay bahashaan birta lagu jaro fa yuudacu waa la saarayay calaa ra'sihi madaxiisa fa yujcalu waxaa laga dhigaya nisfayni laba cad markaa madaxa inta laga saaro asaa loo kala jeexay oo lalaha ka noqo diintiisa sidii xadiidkii dheeraan kasoo sheekeyno casharka ugu dambeeyey wa yumshadu waana la feeraynaya ama la shanlaynayay biamshaati alxadiidi birtii feeradeedii maaragtay ama maaragtay birtii maaragtay bahashan oo sidii maaragtay ganaha leh oo sidii shanlihi camal ah ayaa jirkiisa saa loogu feeraynay oo fargeetada camal saas ganaganaha loogu jeexjeexaya jirkiisa waxaa la feeraynaya maa duuna laxmihi hilibkiisa waxa ka hooseeya iyo wa cadmihi laftiisa macnaha hilibkiisa iyo laftiisa dhexdoo saa loogu dildilaacinayay bahashaas ganaganaha leh maa yasuduhu ruuxaasna kama reebayn daalika arrinkaas can diinihi diinkiisa kama reebayn oo diintiisa kama celinayno intaas waxaa lalahaa ka bax diintaada ka bax aa lalahaa waxaasna diintiisa kama celinayn wallaahi ilaahay marka nabigu wuxuu leeyahy ogaada saasaa lasoo maray dhibkaas ayuu qofka la jeexjeexaya jirkiisa miishaar lagu kala barayo ayuu diintiisa ku dhimanaya idinkuna hadda intaana ka cabanaysaan wallaahi ilaahay aan ku dhaartay layutimana allaahu ilaahay waa uu dhammaystirayaa haadaa kan alamra amarka ah ilaahay dhammaystiri doonaa diintan ilaahay waa dhammaystiri doonaa xataa yasiira raakibu ilaa midka safarkaahi uu socdo oo faraskiisa saaran min sancaa'a magaalada sanca leera laga bilaabo caasimada yaman
ilaa xadramowt gobolka leeraa laga gaaro ee asna yaman ku yaalla oo aada u kala fog intaas ilaa qofka musaafirkaa socdo laa yakhaafu uusana ka baqayn ila allaha ilaahay moogi wax kale uusan ka baqayn iyo wadi'ba waraabihii maahana calaa hanamihi arigiisa uu kala baqayo maahana wax kale uusan ka baqayn oo gaalo iyo dadka hadda dhibka inku hayaahay aysan jiri doonin walaakinakum adinku tastacjiluuna waa degdegaysaan u yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam rawahu lbukhaariy macnaha saasaa dhici doonto adduunkan waxa weeye islaamkaa qabsan doona waxaa arki doontaan hadda adinkiinaan reer maka iyo meelahaas ku ciriiriga ah adinkoo inta qabsateen sanca iyo xadramood inta ka dhexla aad soconaysaan oo adinku ka talisaan oo aan gaal la arag oo aan cadow kale la arag ee aad ilaahay kaliya ka baqaysaan iyo waraabahaas xayawaankaas xoolaha kala baqaysaan kaliya ha degdeginin nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam sabra baabu sabra ku jirnaa ku sabra dhibka idin gaaraya rawahu lbukhaariy wa fii riwaayatin wa huwa nabigu mutawasidun asagoo barkan burdatan go waqad laqiina waana kala kulannay min almushrikiina gaaladii shiddatan dhibaato ayaan kala kulannay dhibaato ayaan kala kulannay markaasaa nabiga calayhi salaatu wasalaam usoo sheegan wacan ibni mascuud waxaa laga wariyay radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi lamaa kaana markuu ahaaday yowmu xunaynin maalinkii xunayn markii u dhacay dagaalkii maalinkii xunayn aathara rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay waa uu dooray naasan dad ayuu dooray filqismati qaybtii u dooroo xoolihii meeshaas laga helay nebigu dad gooniyuhuu siiyey oo iimaankoodu daciif ahaa oo uu islahaa ama iimaankoodu kusoo xoogaystaa ama kuwo iimaankoodu xoog lahaa ee la islahaa dad ama kusoo hanuunaa faactaa nebigu waa uu siiyey al aqraca bna xaabis ninkii aqrac binu xaabis la dhihi jiruu siiyey 100 oo min al ibili geeluhu nebigu siiyey waactaa nebigu waa uu siiyey ninka cuyayna binu xusnina 100 kalaa nebigu siiyey calayhi salaatu wasalaam ujeedka nebiguna intaas muxuu yahay qabyaalad ma ahan dan kale kama le dad uu ka jecel yahay jooga ujeedka nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa weeye inuu dadkaas uu kusoo dumo qalbigooda iimaanka ku adkaadaan waactaa nebigu wuxuu siiyey naasan dad oo min ashraafi alcarabi carab madaxdoodii ayuu nebigu siiyey calayhi salaatu wasalaam si loogu soo hanuuno wa aatharahum iyaguna ay usoo iimaanka u xoogaystaan wa aatharahum nebigu waa uu u dooray ayaga yowma idin maalinkaas filqismati qaybtii u dooroo ayagu u badiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam fa qaala rajulun nin ayaa yimid oo markaas xoogaa bahasha jacaylkeeda uu hayay xoolahaas ragna moogta ilaahay dartiisa u dagaalamayona wax kaloo dana kama lahayn ragna xoogaa markaas ku jiro oo munaafiqiin iyo dadkii ku dhex jira munaafiqiintii adduunyo kaliya rabaa ku dhex jira wallaahi ilaahay aan ku dhaartay ina hadii tan nin ayaa wuxuu yidhi ina hadii tani qismatun waa qayb maa cudila fiiha aan lagu cadaalad samayn nabiga qaybtii uu sameeyey ilaa ahlu adduunya moogta weligood ma xishoodaan nabi maxamed iyo cid kale midna kama xishoonayan adduunya haddaad geshid waa kugu qabsanayaan wuxuu leeyahay waa qayb aan lagu cadaalad samayn khawaarij xataa meeshay kasoo dahiraan halkaas eed soo maha adduunya soo saarta ayagoo dadka ku dhex qarsoon qayb aan lagu cadaalad samayn maa cudila fiiha aan lagu cadaalad samayn wamaa uriida loomana jeedo fiiha qismadan dhexdeeda iyo qaybtan wajhullaahi ilaahay dartiis looma jeedo xabiibkii ilaahay uu wuxuu ku leeyahay cadaalad ma samayn ilaahay dartiisna uma jeedo oo fiirs ma in marka in qof kale ka nabadgalaa la rajaynayo allahu akbar faqultu waxaan iruu yidhi haddaan ahay cabdullaahi binu mascuud ilaa ninkaasi nabiga hortiisa kama dhihin hadalkaas wallaahi ilaahan ku dhaartay la ukhbiranna waan u sheegayaa rasuulallahi sala allahu calayhi wasalam hadalka aatir waa u sheegayaa fa ataytuhu nabiga umid fa akhbartuhu waan u sheeguu yiri hadda macnaha dulmi kama ahan iyo isku dirdir laakiin qofkaani asagaaba islaaxin u baahan midda kale hadalkaani waxa nebigu yani waxa uu yahay hadalkan waa in la sheegay ilaa waa lagu gaaloobi karaa diin ahaan waxa uu sharcigu ka qabo aa loo baahan yahay xukunkeeda in la ogaado marka cabdullaahi binu mascuud kama wada isku dirdir markaasaa fa akhbartuhu waan u sheegaya bimaa qaala ninkan wuxuu yiri fatagayara fa akhbartuhu nabigaan u sheegay yiri fa ataytuhu nabigaan u imid fa akhbartuhu waan u sheegay bimaa qaala ninkii wuxuu yiri fatagayara waxaa bedelmay wajhuhu nabiga wejigiisa sala allahu calayhi wasalam xataa kaana ilaa uu ka noqday ilaa wejiga nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ka noqday ka sirf sidii rinjigii khaaliska ahaa
rinjiga oo guduudan oo aad u guduudan oo kale ilaa nabiga wejigiisa uu ka noqday uma yidhi calayhi salaatu wasalaam faman yacdilu yaa cadaalad samaynaya idaa lam yacdil illaahu ilaahay haddii uusa cadaalad samayn iyo wa rasuuluh rasuulkiisa ilaah iyo rasuulkiisuba haddaysa cadaalad samaynayn wixii ay sameeyeen laleeyahay laguma cadaalad samayn yaa waayo cidda cadaaladda laga sugayo uma qaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yarxamu llaahu ilaahay ha u naxariisto muuse nabi muuse ilahay ha u naxariisto qad uudiya waa la dhibay biakhara wax ka badan min hadaa kan fa sabara waa u sabra sabarkaasaa looga jeeda xadiidka nabi muuse waa la dhibay intaan ka badan waana u sabr faqultu waxaan ilu yidhi cabdullahi bnu mascuud haddaan ahay laa jarama waxaa xaqiiqo ah laa arfacu inaanan soo kor yeelin ilayhi nabiga usoo kor yeelin oo usoo sheegayn bacdaha dhacdadan kadib xadiidan war hadal dambe u keeni maayo muttafaqun calayhi maxaa yeele nabiga anaa saa uga xanaajiyey muttafaqun calayhi wa qowluhu ka sirfi uu yidhi rinjiga khaaliska ah huwa bikasri saadi saadkii loo hoos dhigay almuhmalati ee la dhibic tiray wa huwa sibqun waa rinji axmaru ee guduudan ilaahay subxaanahu wa tacaala hanaga dhigo saabiriin kuwa maaragtay ku sabra dhibkii soo gaara aakhiriya adduunba allah naga dhigo ilahay nabiga magaciisa allah naga dhigo intaas ayaan casharkeena kusoo koobaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh